xisbiga wadajir oo kamid ah xisbiyada mucaaradka ee sida weyn uga soo horjeeda hogaaminta madaxweyne Farmaajo ayaa qaadacay kulanka yeelan doonaan maanta oo Sabti ah. Madaxweyne Farmaajo iyo xisbiyada siyaasadeed ee haysta shatiga guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka. Hogaamiyaha xisbiga wadajir ayaa sheegay in aysan ka qayb gali doonin kulanka madaxweyne Farmaajo ay ku tilmaameen mid aan maaweelo ah oo aan macno samaynayn, kaas oo uu ku baaqay madaxweyne Farmaajo. Waa sida uu sheegay, xisbiga wadajir waxa uu diyaar u yahay inuu ka qayb qaato kulamada looga arinsanayo hogaanka ama hanaanka doorashooyinka 2020 haddii ay dhacdo in madaxweyne Farmaajo uu daacad u yahay wadatashiga la xiriira doorashooyinka 2020. waxa uuna xisbigu dhab u qaadanaya wadatashiyada marka uu madaxweynuhu uu si cad shacabka Soomaaliyeed ugu caday ama uu ballan qaadayo inuusan maalin ku darsan doonin doorashada xileedkiisa, ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay xisbiga wadajir ee hogaamiyaha mucaaradka ee Cabdiraxmaan Cabdishakuur. Hogaanka xisbiga wadajir ayaa shuruud ku xiray ka qaybgal kulankaasi, waxa uuna ka dalbaday in dowladda ay cudurdaar iyo magdhow ay ka bixiso dhibkii xisbiga wadajir u geysateen, gaar ahaan dhacdadii lagu weeraray xarunta xisbiga ee 17 December 2017. aynan dowladdu ilaa iyo haatan wax cudurdaar aysan ka bixin. waa sida hadalka uu sheegay, waa in cudurdaar iyo waliba magdhow ay ka bixisaa dowladda dhibkii iyo waliba xisbiga wadajir u geysteen haddii uu madaxweynuhu uu daacad iyo mowqifkiisa uu xisbiga diyaar u yahay in uu loo xoojiyo ama ka qayb galo shirarka noocaas oo kala. balse waxa uu sheegay in uusan marnaba ka qayb gali doonin shir noocan oo kala. Talawadaag Media kala soco wararkii u dambeeyay dibad iyo caalamka. ku xidhnow Talawadaag Media goor kasta iyo goor walba. Ha moogaan Talawadaag Media.